حاجة سكوت يعني بس ده المرة ما فيسبوك حنا هذا نقول فيسبوك ما أنا أقول عادي أنا ما هي بفيسل فيسا حبيبة فيسل فيسا نقول حنا أنا وأكون معك سير حنا سامي لمن يلا شنو سعيد قهير هيه أقدر أقول عشان هاي عبد الملك مساعد الحريدي شيء هاي مدحوينا سومالان عبس كوفي عيد كستوك غير غاطين أقدر أقول ما حضرين وما تي أنا عندك الدولة فيصل في فئات بنكون سلامية ومالين فرحات ومدنا وسلامينا فرحات بمنوتي عبد الملك مساعد دمت السودان أدبا بفرح سنة فيصل هي الدولة ما صدقني هي عند واحد يدي قد بدون حتى أجمالك أردن أنا معاي كل الكور بالك شكرا هذا والله قواب هذا له أسمع معي صح ها كل الجرس أبتيني دي بقصاب أبتيني دي بقصاب كل دي ساقط كل ده قاعد البال كان قاعد يس قاعد يس ديار تغيير كوبان كدب أيوة عبد الملك له اللي دونا وربعينته وريله هذا ديار جرو جاي يا صاحبي hoteelka guuleed ee magaalada Hargeysa ayaan ku suganay hadda هذا 6 سعد مالك انا عندي كم فيديو انت تنصب الدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa halkan dee la jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyaddeedii helay maanta ay taariikhdu tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa halkan dee la jooga warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyaddeedii helay maanta ay taariikhdu tahay 15 shawaal 1441 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay إلهي بنا المهنقية لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إلهي بنا المهنقية مهنقا نسوكو بك وحن دين شيء يا عداد سويدين إنسان قاب كان كصوب حي وحن كصوب حي عفس مدحوينه أيام كصوب حي
halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dayntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaara waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyey dhaliyey gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyaddeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe oo isaguna sii deynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi aqbalaadda uu ka aqbalay inaan xorriyaddeedii helo waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay'ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyaddeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynayay oo ku taamayay oo rajaynayay mar uun inaan xorriyaddeeda helo waxa jira dad iyo aan la garanay oo dacalada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayr weyn rajaynayay oo garab istaag weyn muujiyay intan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International منظمة العفو الدولية iyadana waan mahad celinayaa hay'adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa jeel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan adigu timaadeen waxa jira dad iyo badan oo aan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay waxaan mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay ee garabkayga ahaa mar kasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay arrimahayga mar kasta muxuu ahaayay idila wadaagay ma ilaawi doono waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diiday ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaayay inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaar ah oo aan ilaaway oo ay tahay inaan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye burcay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreena jazaahumullahu khayr maanta anigu halkan muxuu weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka oran maayo waxa weeye maanta waxa weeye waxaan wad ogtiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inaynu gacmaha is qabsano waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha is qabsano waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yiri nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay waxa weeye shaydaan ayuu bayna dhex galay wax kale ma jiraan waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno xaggii dambe waynu ka nimi bal xagga hore aynu muxuu ahaay u soconno innagoo istoosinayna innagoo isla talinayna innagoo aan aamusayn laakiin waxa weeye wixii hore way tageen waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahaay aynu halkaa ku soo koobno waxa laga yaabaa inaad su'aalaydu ku taagan yihiin su'aalaydu ku taagnaana inta badan muxuu ahaay waa ka jawaab mana doonayna muxuu ahaay waxa weeye wanaag mooyaane wax kale oo inaga baxaa maanta ma jiro marka ma ku qanacaysan warka inaad saa u qaadataan way dhamaatay saasay ku dhamaatay waa mahadsantahay وهاجاج يوسف كيسي عبد الله حقيقة ورفافينته حسب عدالة دريل كوعد أو كمدها المسؤولية زيادة وقدر نقاقي حرقة عالدون أي حد هالكن تاجن يوسف ترين كاجن waan ku faraxsanahay in Cabdimaalig Muuse Coldoon uu helo garanaysa xorriyadiisii waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka oo aqbalay codsigii labada gudoomiye xisbi iyo xogeyaha guud ee xisbiga Cabdinaasir Yuusuf Ismaan waxa kale si gaar ah uga mahadnaqayaa ninkan hariye habeen ka seexan Saciid Maxamuud Gahayr oo la baxay afayeenka Coldoon iyo dhammaan cid kasta oo ka damqatay xarigiisa aad iyo Faysal Fiifaba Yuusuf Kaysi Cabdilaahi aad buu maadsay xogeyaha warfaafinta xisbiga أنا داسان كسو كوبي دونا كل أربعينات كي وهالكان كوقبتي سامفلا وريه عبد المالك شيخ موسى عضون إنسان كوكل بينه
barnaamijkan mid xiga dhamaantii waxaan kaga tegnaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad ugu xidhnaato taabo subscribe